madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo maalmahan socdaal ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa kulan saaka la yeeshay madaxweynaha Kenya William Ruto kaas oo looga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin dhaqaalaha iyo waxa labada dhinac ay iska kaashan karaan. sidoo kale madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro iyo wafdigiisa ayaa kulamo la yeeshay wakiilada iyo safiirada caalamiga ah ee fadhigooda uu yahay magaalada Nairobi. haddaba waxaa wafdiga madaxweyne Ciro ka mid ah wasiirka madaxtooyada Somaliland Qadar Xuseen Cabdi oo goor dhow intii idaacadana soo gelin qadka telefoonka igu waramay. walaal safarka madaxweynaha ee halkan wuxuu daaranaa casuumad uu ka helay wadankan Kenya waxaanu ahaa mid uu kula yeelanayo mas'uuliyiinta wadankan oo ugu horeeyaan madaxweynaha wadankan William Ruto. sidoo kale waxa arintan oo barbar socday kulano kale oo aan beesha caalamka la lahayn oo iyaguna shalay dhacay oo aan kula yeelanay wakiilo kala socda beesha caalamka qaramada midoobay wadamada daneeya arrimaha Somaliland, Mareykanka, Ingiriiska, Finland, Sweden, Denmark, Jarmalka, Canada, bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika. kulankaas oo runtii kulan aad u weyn ahaa oo shalay noo dhacay. kulamadaasi aad la yeelateen beesha caalamka iyo wakiilada kala duwan ee beesha caalamka ee Nairobi fadhigooda uu yahay maxaad kala hadasheen? waxaanu kala hadalnay iskaashiga Somaliland ay la leedahay beesha caalamka, deeqaha ay Somaliland hesho, arrimaha doorashooyinka Somaliland ku soo wajahan sanadka soo socda, arrimahaas iyo runtii arrimaha amniga ayaanu kala hadalno ka sheekaysanay. madaxweynaha Kenya saaka madaxweynaha Somaliland oo la kulmay isagana maxaad si gaar ah uga hadasheen oo aad ilaa iyo hadda noo sheegi kartaa? madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Somaliland waxa ay ka wada hadleen xiriirka labada wadan. Kenya iyo Somaliland taariikh fara badan bay runtii wadaagaan. waa laba dal oo labada dalba waxaan ku dhahdaa British protectorate ahaan jiray, waana laba dal oo marka Horn of Africa la eego labada wadan ee ugu dimuqraadisan. marka runtii waxyaabaha ay labada wadan iska kaashan karaan sida dhaqaalaha ayaa laga wada hadlay. maritime security-ga ayaa iyadana laga wada hadlay. arrimahaas ayaan ka sheekaysan. waxaa jira in halkan maanta laga xarig jaray xafiis weyn oo Somaliland halkan ay ku yeelanayso, laakiin waxaa soo baxayay maalmahan intii aad Nairobi joogteen in xafiiska furitaankiisii dib loo dhigay iyo warar dabcan la xiriira arrimahaasi. maxaad nooga sheegi kartaa innaga iyo dadka ku dhageysanayaba arrimahaasi maxaa ka jira? Somaliland iyo Kenya runtii xiriirkoodu maaha mid imika bilaabmay. xiriir soo jireen buu ahaa. xafiiska aan halkan ku leenahay maaha xafiis cusub oo maanta runtii la furayo. marka runtii xafiiskaasi waa jiray de haddana waa sii jiraya. waad la socotay maanta in xafiiskii madaxweynuhu xariga ka jaray. marka runtii xiriirkaanu Kenya la leenahay waa xiriir wanaagsan oo aan rajeynayno inuu labada wadanba kala faa'iidi doonaan. marka ma jireen wax culaysyo ah oo arrinta ka yimid oo Soomaaliya ka yimid ama dalal kale ka yimid oo dib u dhac ku keenay ama soo hadal qaadaba? run ahaantii waxa uu schedule garaysnaa maanta oo 29 bisha inuu dhaco, sidii baana u dhacday. marka wax culays oo aanu dhinacnaba ka dareenin ma jirto. madaxweynaha Somaliland safarkan waa safarkiisii saddexaad. horey waxa uu tagay Djibouti iyo dalka Sultanka Imaaraadka Carabta. marka ujeedka ugu weyn ee aad ka leedihiin safaradan maxay yihiin marka laga yimaado inaad la kulantaan dadka oo mas'uuliyiinta aad kala hadashaan arrimo la xiriira dhaqaalaha, amniga iyo waxyaabo la mid ah? markasta oo madaxweyne Somaliland uu safro, ujeedada koowaad ee uu dalka kala hadlaa waa sidii ay Somaliland aqoonsi u heli lahayd. madaxweynaha Somaliland 18 May waxa uu qoray warqad uu kala diray beesha caalamka 155 wadan oo xubno ka qaramada midoobay oo uu kaga codsanayo si inay Somaliland aqoonsadaan, kiiskeeda dib u eegaan oo ay ku caddahay dooda Somaliland mid taariikheed iyo mid sharciba. madaxweynuhu saaka waxa uu fursad u helay halka madaxweynayaasha kale loo dirayay oo safaaradahooda la geynayay inuu si shakhsi ah ugu dhiibo oo uu isagu gacanta ka geliyo madaxweynaha Kenya William Ruto. marka run ahaantii aqoonsiguna mar walba miisku saaran yahay iyo kala hadalkiisu. inta aqoonsigu imanayana dunida iyo macaamilkii naga dhaxayn lahaa iyo sidii aan u wada shaqayn lahayn iyo arrimahan iska kaashanayna amniga iyo dhaqaalaha
iyo maxaan ku dhahdaa Djibouti waa dalan jaarnahay walaalanahay darisnahay isku dadnahay Kenya waxa weeyaan xiriir dhaqaalaan leenahay dad badan oo reer Kenya ba jooga Hargeysa oo ka shaqeeya Somaliland jaaliyad weyn oo reer Somaliland ba halkan joogta marka runtii arrimahaas dadkan waa dad isku xidhan oo wada shaqeeya weyn wasiirka madaxtooyada Somaliland Qadar Xuseen Cabdi oo qadka telefoonka igu warramayso ku sugan magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa